madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa maanta mar kale caddeeyey mowqifka kaga aadan khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya. saciid deni ayaa jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa taasoo uu kaga hadlay marxaladda siyaasadeed ee dalku uu ku jiro, khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya, ku-xadgudubka dastuurkii ku-meelgaadhka ahaa ee ummadda soomaaliyeed ay wada lahayd, samaysinka dastuur cusub, hanaan doorashooyina oon loo dhannayn, hay-ado dawliya oo aan soo marin habraacyo saxa, iyo siyaasado guracan oo dowladda federaalka ee soomaaliya ay kula dhaqmayso maamul goboleedyada, taasoo uga digay madaxda dowladda islamarkaana uu ku tilmaamay in ay dhaawacayso midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed. saciid deni ayaa dhinaca kale carabka ku adkeeyey in ay lagama maarmaan tahay in madaxda dowladdu ay ilaaliyaan midnimada iyo wadajirka iyo wixii ummadda soomaaliyeed ay wada lahayd, taasna ay tahay midda keliya ee guul lagu gaari karo. waxa uu dhinaca kaleeto baaq adagi u diray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha golaha shacabka iyo weliba labada guddoon ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya, taasi oo uga digay qorshayaasha aan loo dhannayn, hanaanka guracan iyo weliba inay ilaaliyaan wixii ay u dhaarteen ee ummadda soomaaliyeed ay ugu dhaarteen inay ilaalinahayaan. khudbadan oo dhinacyo badan taabanaysay islamarkaana falcelin xoogan ay ka dhalatay saacadihii lasoo dhaafay ayaan qodobkeena koowaad ku dul istaagi doonaa hadduu allaydmo. waxaan qodobkeena labaad iyadana ku qaadaa dhigi doonaa dowladda federaalka ayaa jawaab adag ka bixisay, waxayna ku tilmaantay hadalkii saciid cabdulaahi deni jid iyo jaahwareer iyo midnimo diid, waasay hadalka u dhigeen. waxa ayna u makhraati gashadeen soomaaliyey barasho wanaagsan. wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya cali xoosh ayaa qoraal uu soo saaray ku tilmaamay jid iyo jahadiid inuu yahay saciid cabdulaahi deni, wuxuuna ummadda soomaaliyeed u makhraati gashaday barasho wanaagsan isagoo sidaasi leh. khudbadda saciid cabdulaahi deni ayaan muuqaalkan kusoo koobi doonaa iyo jawaabaha dowladda federaalka kasoo baxay iyo weliba ciidan si gaara u tababaran oo madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu tababar maanta usoo xidhay. waxaan dhinaca kaleeto mid iyo laba ka dul istaagi doonaa. saciid cabdulaahi deni ayaa caddeeyey wejiga afraad ee la dagaalanka khawaarijta deegaanada lagu qaadayo, waktiga uu bilaabanayo ayaan iyadana soo qaadan doonaa hadduu allaydmo. soo dhawaada, muuqaalka like saara, aragtidina nagula wadaaga qaybta commentiga. aynu ku bilownay. madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa maanta jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa. dhowr qodob ayaan ka soo qaadanay oo la xidhiidha dhinaca dowladda federaalka ee soomaaliya. khudbaddu way dheerayd, somalilan buu ka hadlay, s c buu ka hadlay, dhinacyo badan buu ku taabtay, balse muuqaalka ayaa inala dheeraanaye waxaan muuqaalka rabaa inaan kusoo koobno khudbadda inta ka qusaysay dhinaca dowladda federaalka ee soomaaliya, la dagaalanka khawaarijta, wejiga afraad ee bilaabanaya, iyo sidoo kaleeto marxaladda siyaasadeed iyo sida loo xallin karo iyo howlaha dowladda federaalku ay wado iyo aragtida isaga kaga aadan gogashii xasan sheekh maxamuud ayaan kusoo koobi doonaa hadduu allaydmo. nala socda idinkuna insha allahu tacaala. saciid cabdulaahi deni khudbaddii maanta uu jeediyey waxa uu kaga hadlay ama uu ku caddeeyey mowqifkiisa khilaafka xasan sheekh maxamuud kala dhexeeya. wuxuu sheegay oo caddeeyey mar kale inuu diyaar u yahay xalinta khilaafaadka, in uu diyaar u yahay ka qaybgalka gogashii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu cilaamiyey oo uu ku tilmaamay weliba fariin uu ugu diro uu yidhi waxaan ugu baaqayaa madaxweyne baaq ba ugu diray weliba inuu ka dhabeeyo buu yidhi gogashii uu horay ugu dhawaaqay ee uu yidhi saamilayda siyaasadeed ama daafaha kala duwan ummadda soomaaliyeed ayaa gogol ugu dhigaya. taas ayaa caddaynaysa in saciid cabdulaahi deni uu diyaar u yahay ka qaybgalka shirka madasha wada tashiga qaran iyo gogasha madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa weeye uu maalmo asbuucyo kor uu ku dhawaaqay. ma aha markii koowaad oo saciid cabdulaahi deni uu caddeeya mowqifkiisa kaga aadan xalinta khilaafaadka, adkeynta midnimada ummadda soomaaliyeed iyo wadajirka, iyo sidii waxa weeye wax walba oo tabasho laga qabo looga wada hadli lahaa. intaasoo jeer ayuu kusoo celceliyey. waxaan ogsoonayn in saciid cabdulaahi deni uu gogol ku dhawaaqay oo uu yihi garawe ayaan gogol dhigayaa, taasoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka cagajiiday, gebi ahaanna sidaasi ku baaqatay. maanta ayuu mar kale dhibco siyaasadeed ka qaatay saciid cabdulaahi deni oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu ku garaacay nabaro isaga aad ugu daran. waxa uuna ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay ka qaybgalka madasha wada tashiga qaran iyo inuu isagu diyaar u yahay xalinta khilaafaadka, adkeynta midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed. waa qodob saciid cabdulaahi deni taasi iyadoo waa caddeeyey.
waxaana halkaasi ka cad in isagu khilaafka uusan horkacaynin diyaarna uusan ahayn ayna ka go-an tahay in la xaliyo waa qodobka labaadee wuxuu ugu baaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kaleeto guddoomiyaha golaha shacabka in ay ilaaliyaan wixii ay u dhaarteen weliba gaar ahaan guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe ayuu si gaara u xuso wuxuu yidhi sheekh aadan madoobe guddoonka golaha shacabka oo labada goloba waxaan ugu baaqayaa buu yidhi inay ilaaliyaan dastuurkii ay ummadda soomaaliyeed wada lahayd ee ku-meelgaarka ahaa wixii ay ummadda soomaaliyeed ugu dhaarteenna in ay ilaaliyaan oo aysan ku xadgudbin puntland diyaar uma aha buu yidhi marna ma aqbalayso in lagu xadgudbo dastuurkii ummadda soomaaliyeed ay lahayd oo dastuur aan loo dhannayn la iska soo dhoobdhoobto waana midda saldhigga u ahayd buu yidhi khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya horay ayay puntland arrintaa u diiday haddana guddoonka golaha shacabka ama hay-adda sharci dejintaba waxaan ugu baaqayaa buu yidhi in ay ka fogaadaan ka waantoomaan yegyeelidda dastuur aan jirin oo wixii ummadda soomaaliyeed ay lahayd laga guuro ha ka fogaadaan buu yidhi waxaa dhinaca kaleeto uu xusay saciid cabdulaahi deni in mar walba isaga ay ka go-an tahay xalinta khilaafaadka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya wuxuu xusay inuusan aqbalaynin kala daadin iyo ummadda soomaaliyeed inay kala tagto dad badan ayaa ku xaminaya saciid cabdulaahi deni inuu isku diyaarinayo in maamulka puntland uu gooni istaag ugu dhawaaqo uu yidhaahdo maamul goboleed madax bannaan weeye balse arrintaasi meesha ayay ka baxday oo saciid cabdulaahi deni wuxuu tilmaamay in uusan aqbalaynin kala goynta ummadda soomaaliyeed iyo kala tagga ummadda soomaaliyeed islamarkaana uu isagu ka go-an tahay adkaynta iyo xoojinta wadajirka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed meel walbo ay joogaanba qodobkaasi iyadana waa caddeeyey baaqayuuna ugu diray guddoonka golaha shacabka waa qodobka saddexaade saciid cabdulaahi deni wuxuu xusay in dowladda federaalku ay joojiso siyaasadaha guracan marka la leeyahay waa hanaanka qabsoomida doorashooyinka oo loo dhannayn waa hanaan waxa weeye hanaanka loo sameeyey guddiga doorashooyinka waa hanaanka loo sameeyey hay-adda diiwaangelinta shacabka soomaaliyeed oo ayadana habraac saxaan soo marin waxaasoo dhan waa hanaanka geedi socodka siyaasadeed ee guracan ee puntlandna ay horay uga hor imaatay diiday saciid cabdulaahi deni meel adag buu ka istaagay wuxuuna ugu baaqay madaxda dowladdu inay kusoo leexdaan tubta toosan ee ummadda soomaaliyeed meel sare gaadhsiin karta isla markaana ay ka soo leexdaan waddada qalloocsan ee mugdiga ee dalka saddexdii sane ugu dambeeyey madaxweynuhu uu ku dhex riday waa xasan sheekh maxamuude intaasi waa dowladda federaalk ee soomaaliya wuxuu dhinaca kaleeto saciid cabdulaahi deni uu taabtay oo uu xusay in wejiga afraad ee la dagaalanka khawaarijta ay ka bilaabanayaan gobolka sanaag isla markaana hawshaa mar dhow ay bilaaban doonto waxa uuna xarigga ka jaray ama uu maanta tobabar usoo xidhay dufcooyin ka mid a ama guutooyin ka mid a ciidamada daraawiishta maamul goboleedka puntland oo si heer saraan loo tababaray weliba hab nooc cusub ah ayay tababarka u qaateen baa layidhi waa ciidan gaar ah baa layidhi kuwaas oo lafdhabar u noqon doona ama hormuud u noqon doono bilaabidda iyo la dagaalanka khawaarijta ee wejiga afraad ee buuraleyda calmadow ee gobolka sanaag taasina iyadana mar dhow ayay bilaabanaysaa buu yidhi ka hor dhici maayo buu yidhi maalin hebel bay bilaabanayna ma dhahayo laakiin way bilaabanaysaa ee ku bishaaraysta buu yidhi shacabka reer puntland iyo ummadda soomaaliyeed ee midnimada iyo wadajirka jecel ee kasoo horjeeda kooxaha argagixisadaaba waxa uu dhinaca kaleeto saciid cabdulaahi deni uu xusay dowladda federaalk intaasi markuu saciid cabdulaahi deni aan dhahna uu kusoo koobay oo khudbadda xagga dowladda federaalka uu ka taabtay wasiirka arrimaha gudaha oo deegaan ahaan reer puntland ayaa arrintaa kasoo jawaabo horta dhibsaday isaga oo hadal uu xagga khaatuma ka yidhi usoo qaadanayo wuxuu yidhi waajid iyo jahdiid buu yidhi in gogashii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dhigay uu diiday buu yidhi saciid cabdulaahi deni soomaaliyay barasho wanaagsan buu yidhi intaasuu isagana iyo qoraallo yaryar oo kale ayuu sii raaciyey oo uu kaga falceliyey khudbaddii saciid cabdulaahi deni si walbaba markaan eegno oon qiimayno khudbadda saciid cabdulaahi deni kuma jirto wax turxaan ah oo la xidhiidha diidmo gogasha madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dhigay iyo wax la xidhiidha diidmo amaro dowladeeda ama la xidhiidhaba kala goyn ummadda soomaaliyeed iyo kala tag iyo midnimo diid toona kuma aanan arag markaan qiimaynay dhinac walba ka eegnay khudbadda madaxweyne saciid cabdulaahi deni wuxuuna u muuqday hadalka wasiirka inuu yahay hadal cadiifadaysan islamarkaana uu ku difaacanayo kursigiisa maadaama laga yaabo in puntland ama madaxda puntland ba aysan raalli ka ahayn joogitaankiisa kursigaasi
oo arrimo siyaasadeed la isku haya dowladda federaalka soomaaliya oo isagu deegaankii uu ka soo jeeday uu uga xubsiibtay joogitaanka magaalada muqdisho iyo wax la qaybsiga madaxda fadhigooda uu yahay magaalada muqdisho iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ugu horeeyo deegaankiisa iyo tabashooyinkii ay qabeenna uusan dheg jalaq u siinin oo dhinacoodaba uusan soo dhowrin si kastaba waa wax iska caadiya in siyaasiyiintu ay isriiriixaan oo arrimo siyaasadeed isku hayaan balse markaan qiimayno waaqica taagan hadallada ka soo baxay Saciid Cabdullaahi Dani jawaabta dowladda federaalku iskuma eka oo waxaad moodaa in ay kala wataan sumado gaar ah oo Saciid Cabdullaahi Dani uu abaaray wadadii saxda ahayd isla markaana uu si caadi ah oo aan turxaan iyo sidoo kaleeto maroortoona uu ku jirin uu uga hadlay waaqica siyaasadeed ee dalka uu ku jiro iyo sidoo kaleeto aragtidiisa isla markaana ummad Soomaaliyeed oo fara badan oo laga yaabo markii horeba inay siyaasad ahaan kala fogaayeen ama ay u arkayeen Saciid Cabdullaahi Dani inuu yahay mid isagu khilaafka abuuraya ay meesha ka saareen oo ay run ahaantii soo dhaweeyeen khudbadii maanta uu jeediyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa haddii waa la idmo